السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عوا waxaa halkan aanu doonaynaa inaan qaaraan oran ugu samayno isbitaalka laga dhisayo magaalada Yugori oo ku kamida gobolka Laascaanood Somaliland. runtii halkan waxaa ila jooga Saciid Maxamed Buraale aanu hawlo badan oo hore wada qabanay. hawlaha faraha badan waxaa kamid ah tii ugu dambeysay waxaa kamid ahay ambalaasyadii qaaraankii ambalaasyada ee loogu talagalay COVID-19 ee Somaliland loo dirayay uuna hawl badan ka qaatay. Saciid, marka hore soo dhawow, maxaynu doonaynaa caawa bal naga sii warbixin yaroo kooban isbitaalka Yugori iyo sababta keentay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan u salaamayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, khaasatan reer Bristol oo aan rajaynayo inay nagala qayb qaadan doonaan. haddaan soo qaato muxuu ahaa Yugori waa magaalo u dhow Laascaanood u jirta 50 kilomitir ayay u jirtaa. 50 kilomitir waxa weeye magaaladaas ma laha deegaankaas muxuu ahaa caafimaad meel lagu daweeyo male, ma laha muxuu ahaa hab wax daryeelka muxuu ahaa caafimaad oo dhan kama jiro. taas waxay khasab noqotay markaa in dadka deegaanku ay keenaan muxuu ahaa sidii wax loo qaban lahaa. ra'yigooda ahayd qurbo joogtii ula yimaadeen. waxaa bilaabay qurbo joogta deegaanka waa aad dadaal fiican bay sameeyeen, lacag waxbay programka way bilaabeen ilaa hadda wuu socday. baahida jirta waa baahi weyn deegaankaas ee caafimaadka, waayo deegaankaas wuxuu ahaa deegaano xagga muxuu ahaa horumarka waxaa ka haray deegaamo badan oo kale oo deegaanka ahaa. marka waxaan doonaynay muxuu ahaa cusbitaalkaas inaan loo kala harin, qof kastaba awoodiisa wuxuu ka bixin karo uu ka bixiyo. waa laga yaabaa maalin adoo waa laamigan mara deegaankaas oo dhan buu ku yaalaa cusbitaalku uu saaran yahay. waxaan filanaa inuu wax badan tari doono, in dad badan ka faa'iidaysan doonaan. waa sadaqo jaari ah oo anfici karta qof kastaba. marka guud ahaan waxa weeye waa baahi weyn aad u weyn oo loo baahan yahay. waxaan codsan lahayn qof kasta awoodiisa inuu informationkan siin doono oo ka qayb qaato. Saciid, aad baad mahadsan tahay. runtii in wax la istaro laga shaqeeyo arrimaha bulshada waa waajibna saaran. caafimaadkuna waa wuxuu ka mid yahay adeegyada halbowlaha oo ah nolosha bini'aadamka, una baahan in mar walba si joogto ah loo horumariyo. haddii aan bal dadka la yara wadaagno Yugori hospital Yugori sida la doonayo inuu ekaado qaabkiisa waxaa ku baxaya bal aan dhowr daqiiqo aan intaa yara dulmaro. runtii isbitaalka Yugori waxaa la doonayaa in uu noociisa iyo naqshadiisa dhisaankiisu markuu dhammaado saasuu u ekaan doonaa. sida uu sheegay waxay u jirtaa 50 kilomitir magaalada Laascaanood. runtii marka la eego caruurta, umulaha iyo cid kastoo xanuunsanaysaba waxaa loola cararaa magaalada Laascaanood. waana garan kartaan khatarta ay leedahay marka 50 kilomitir oo weliba waddankeeni la joogo. waxaa laga yaabaa inay khataro badan la kulmaan. marka dadka reer Yugori oo iminka aad moodo tiradoodiina dee ay sii badanayso in ay helaan adeegyo caafimaad oo asaasiya waa lama huraan. runtii naqshada aad arkaysaan waxa weeyaan inuu yeelan doono scan roomkii, halkii raajada lagu qaadayey, meeshii lagu cunteynayey, maqaasinadii, hurdadii, wixii oo dhan. waxaana uu qaadi doonaa waararkii ragga iyo dumarka oo kala qaybsan ilaa 75 sariirood ayaa loogu talagalay in uu noqdo. oo ay weliba la helo dadkii hadhowna ka shaqayn lahaa oo khibrad u leh arrimihii caafimaadka. hadday noqoto dhakhaatiirtii, hadday kalkalayaashii noqoto. waad fahmi kartaan marka meel aanu ka jirin adeeg caafimaad runtii lama helo, dadkiina meel kale u shaqo tagaan. marka dadkii localka ahaa waxaan jeedaa dadkii deegaanka ee cilmiga lahaa, khibradda lahaa, iyo weliba qurbo joogtuna si usoo noqon lahayd uga qayb qaadan lahayd. marka lacagta ku baxaysa isbitaalka waa $3,770,800 kharashka intaa leeg. bulshada Yugori
iyo laascaano waxay imika bixiyeen in ka badan $100,000 waad arki doontaan wixii lagu qabtay waayo dhismihii uu socdaa waxaa loo dhismihii lacagtii laga qaaday durtaba ay bixiyeen dadka deegaanka ee Yagoori iyo laascaano waad aragtaan dhismaha isbitaalka waxaa la bilaabay wejigii koowaad wuu socdaa weliba imika waxaad arkaysaan dhismihii socdo saqafkiya waynu arki doonaa isagoo la saaray xukuumadda Somaliland waxa u qorshaysan guddida arrintan gacanta ku haysa waxa u qorshaysan sida ay warqaday noo soo direen ku qoran in 20% laga qaado xukuumadda Somaliland waa 75,000 iyo badh marka iyo weliba sidoo kale dawooyinka iyo agabka caafimaadkana in wasaaradda caafimaadka Somaliland iyaguna lagala hadlo laga qaado marka qorshahay ugu jirtaa wayna ka wada hadleen sida uu Saciid Maxamed Buraale noo sheegay waad aragtaan isbitaalkii dhismihii lacagtii laga qaaday ay bixiyeen ay ku deeqeen dadka deegaankii durtaba isbitaalkii wataa aad aragtaan saqafkii la saaray uuna socdo maxaa lagu helayaa haddaba isbitaalka waa adeegyo kala duwan oo caafimaada shaqaale caafimaad oo khibrad leh in la helo 15 sariirood waar dumarka iyo ragga u gaara waar ragga u gaara qaybtii umulaha iyo caruurta waa naqshadii aan markii horeba idin tusay يعني سيدا نقولنا ويان يو هالكا قيب والبلاء إلا حفيسيدي وح والبلاء يحقق الوتر بري مركلة وكا إسقو دوش لقى صوري على ركتان يعني وح وناكسن إن أينو أرينو يجوري أو أمان تلاقى جسوا إسبيتال سيدا أقرح بنودك عافمات هلان تي واحد إن سيني ساتلابا كله أو أينو أود أولينا هاي إن أينو مجالة كستا أو ay degan yihiin dad tira leeg in ay heleen adeeg caafimaad halkii ay u tagi lahaayeen magaalada ugu dhow oo kale aanay mar walba u baahanin isku filaasho u noqoto adeegyada caafimaadka iyo waxoodii wataan haddaba waxaan uga tegayaa Saciid waynaga soo sheegnay sidee baad doonaysaa reer Bristol aynu ka bilowno maxaynu uga baahanahay horta reer Bristol weeyaan su'aashiin reer Bristol waynu naqaanaa odayadii magaalada ka mid tahay waxaad ka mid tahay dadka runtii u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo arrintii ugu dambeysayna ambalaasyadii Somaliland aad gacan weyn ka geysatay marka baaqa ugu horeeya dhowr baaq waynu caawa halkan ka diri doonaa baaq waa qurba joogta ayaynu ugu baahannahay baaqna waa reer Bristol marka hore reer Bristol maxaad leedahay عبد أدبر ما تنتهي وهرمتها وحياة بدن بينه ريال بريستول ويكون في عينين حاجة بحتانك محوها صدقة وايو انت كاركي وحوي نقالة في عمي أوروبيين ولما وقت كومن أي كوروبيين وحن في ليا مكا إن كان الله كان حارين وسيد دقن كوها ليل دونه أو أن محوها وحبا لغيرين انتي هوري وايو أستال كان وحوي هول وين بوها يا دقان كاس dad badan baa lagu badbaadaya dumar badan oo umal ku dhiman lahaa baa lagu badbaadinaya caruur xanuunsanaysa oo lagu daweynaya iyo cudurradii kale haddaan kugu soo daro dhaqaatiirtii waa diyaar dhaqaatiir badan oo waxaa jirta deegaanka ah oo doonaya inay Yurub joogaan oo rabaan mar alle marka cusbaalkaas dhamaado inay u shaqo tagaan marka muxuu ahaa reer Bristol waxaan ka codsanayaa aan u sheegayaa dhaqankeenii aan naqaanay ahay sadaqada inaanu bixino tanoo kaleeto waxyaalaha ugu muhiimsan waan filayaa inaadan marna dhayalsan doonin aniga cabdi qaaran uruntaan idin soo jeedinay marka walaalayaal arrintan nagala qayb qaata gacanta fura waa wax fiican qof walbana waana sadaqo muxuu ahaa badbaadin dadeed ah oo wax badan taraysa marka waxa weeye kolo waan idin imaan doonaa oo wana arki doontaan haddii ilaahay maalmaha soo socda marka waxaan idinku talagalay videogan inaad la sii socotaan aad ogaataan arrintan arrin yar maaha takala dadkan deegaamadan qaarkood waxaa jira deegaamo aad ay waxyaalo badan ay u baahan in loo qabto marka magaaladan Yagoori waa magaalo iminka aad u kobcday meel fiican bay ku taala deegaan ahaan waa magaalo nabadgelyadeedu aad u fiican tahay waa magaalo u baahan horumar maanta marka waxaan ka codsanaynaa magaaladaas saad uga qayb qaadan lahaydeen wax yar wax weyn ha noqoto lacagta la ka rabo anagu ma xadidino oo sadaqo laakiin waxaan rajaynaynaa dhaqankeenii aynu naqaanay haddaan nahay reer Bristol markaynu wax ururino
in sidoo kale dhaqdhaqaaqa loo sameeyo oo aan la yaraysan oo waynu ku ficinayne meeshuna aynu ka wadno marka reer Bristol cabdo saasaan ka dalbanaya aan ka codsanaya haddii la yidhahdo aad baad u mahadsan tahay Siciid reer Bristol iyo qurbo joogta kaleba waxaynu ka codsanaynaa runtii inay qaaraan ururintan ka qayb qaataan waana muhiim waana lama huraan runtii waana wax loo baahan yahay marka maxaad kale oran lahayd qurbo joogta kale iyaga aynu u baahannahay inay ka qayb qaataan iyagana hadda hadda videoga waxaan ugu talagalnay inaanu u qaybino deegaamada dhan London inaan geyno Birmingham Manchester Maraykan Europe New Zealand Australia way jiraan dad arrintan wada lacag badan baa qurbaha waxba laga soo ururiyay laakiin marka wax la qabsanay waxa fiican in wax la wada qabsado oo dadku waxa ka wada dhaxeeya ee aan qofna una lahayn sida caafimaadka waxbarashada iyo arrimaha kale wadooyinkan iyo horumarka wixii ah waxa jira waxyaalo service dadku uu wada leeyahay marka waxaan oran lahaa waxyaalaha serviceka ummadda ka dhaxeeya in loo arko service dan u ah dadkoo dhan marka deegaan qof kasta oo ina fahmay ama ina maqli doono waxaan ka codsanaynaa inta awoodiisa ah inuu ka qayb qaato mashruucan takalana inay noo noqoto muxuu ahaa dayasho inuu mashruucan uu sii horumariyo mashaariic kale oo mar walba inuu inaan waddankeena u dhisan lahayn aan horumar u gaarsiin lahayn aynu saarno awoodda marka qurbo joogta meelay joogaanba dhageysan doona videogan please waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba way ku qoran tahay oo screenka waan idiin soo gelin doonaa saad lacagta ku bixinaysaan reer Bristol iyaga waa ka duwan yihiin waanagu gacantaan ula tegaynaa annagaa ku joogna xataa magaalooyinka kaleeto in magaalo kastaba dadka jooga lagu dhiirigeliyo mashruucan la hordhigo loo sheego uu noqdo mid muxuu ahaa sida ugu dhaqsaha badan leh looga qayb qaato waayo waynu ognahay deegaamadeenna marar badan waxaa laga yaabaa inuu waqtigii roobku yimaado xitaa oo mashruucu dib u dhac u keeni karto marka waxa weeye dadaalka yaan la yaraysan waan aragnaayo hadda screenka waxaa idinka muuqda siyaalaha lacagta lagu diri karo waan aragnaa waxaa lagu diri karaa sat oo telesom ah oo lambarkooda halkaa ka muuqda uu yahay marka lagu daro lambarkii Soomaaliya uu yahay eber 6342698 eber waxaad ku diri kartaa kan Amal Bank oo isna account ku yahay 10 hal eber hal 3 eber 42759 waxaa kaloo lagu diri karaa Darussalam Bank oo isna 6115752 ah sahal account baa lagu diri karaa isaguna oo 311732 ah iyo Dahabshiil Bank oo isna ah LSD 2559 waxaa lagala xiriiri karaa oo jooga localka waa ka telefoonka meesha ku qoran yahay eber 25235 baan leeyahay screen baad ka arkaysaan anuu si fiican hadda ma arkay laga yaabaa marka please waxaan idinka codsanaa arrintan aanu bilownay caawa inaanu natiijo fiican ka keenno inaynu intaas inaga dhiman wax badan maaha waa wax la bixin karo dad badan oo awoodi lahay uu siiyo dhaqaalana way jiraan haddii ka qayb qaadanayaan waa kasii fiican tahay ta kaleeto waxa weeye waddankii waxaa ka jira waad ogtihiin oo dhibaatooyin badan oo muxuu ah servisyadii ah xagga servisyadii xaggii adeegyada absolutely Siciid aad baad u mahadsan tahay adeegyada caafimaadku waxa weeyaan waxay ka mid yihiin aasaaska nolosha ee loo baahan yahay in la joogteeyo la horumariyo mar walbana laga qayb qaato runtii in maanta magaalo 50 kilomitir u jirta Laascaano oo umulihii loola cararo runtii waa waxay noqon dambaysa waxaynu jecelnahay reer Bristol gaar ahaan iyaga waanu isnaqaanaa guryahaanu kusoo garaaci doonaa dukaamadaanu ugu imanay meel walba dariiqaanu kaga qaadaynaa mid baanu la soxaynaa haddii ilaahay yidhaahdo qurbo joogtiina kale ee waddanka intiisa kale hadday tahay nagala UK dhammaanteed iyo hadday meelaha kale tahayba fadlan waa kaa Siciid Maxamed Buraale tiriyey halkii lagu shubayey waxa kale oo ku qoran haddii wax faahfaahin aad u baahataan lambarada lagala xiriirayo guddida arrinta gacanta ku haysa halkaasi ku qoran yihiin fadlan haddaad wax dheeraad u baahataan la soo xiriira Siciid Maxamed Buraale oo garanaysaan waxaan idinku dhiirigelinaynaa in aad ka qayb qaadataan oo aad mataqaanaa waa
waxaynu sii dhiganayno waxaynu dadkeenu ku caawinayno aad baananu idinka mahad celinaynaa runtii ma noqonayo markii koowaad ama markii ugu dambeysay laakiin wuxuu noqon doonaa olole aanu joogtayn doono oo aanu doonayno ilaa iyo inta cisbitaalkaasi iyo goori uu ka dhismayo aanu runtii wadi doono aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu That's good.